بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ السلامة ولا له قالي أحمل والبأدون كدعاليس كجوكتان إي وقت والبإذي تا وحرجينا إن فرحتي عافمات قبطان إلى إذي سياديو أنت حنوصنا يسأل الله عافية أنت عافمات قبطان الله سياديو ولا له قالي سود وهذا مرلوات وإذي مهد علينا سايقو حرنتين كومنتيدي نقروح ذا جزاكم الله خيرا ولا لها قالي يقصو بيرسود وهذا جنال كوا جنال كينا هدا جنال كعصبته وحنكا عصينا سبسكرايب نوساتد كمبلالك أنك ديغتيسا ونقطة daawadaha ugu horeeya daawada fiidiyaasheena waxa inoo wadaa keek ma sha Allah casiri caruurta uga dhigi kartid martaad ay ku imaato 5 daqiiqo uga soo tuuri kartid ma sha Allah iskuul caruurta u qaadan karaan ugu horeyntii keega markii aan inta aanan sameynin ka hor saxankan ayaa marsanaya prestige-ka saxanka isticmaalaya waa saxanka dhalada prestige-ka soo mari doona insha Allah markii aan soo mari waa diyaarsanaya kadibna keega ayaan sameysanaya keega isticmaalaya ka sameysanaya maanta waa sponge cake marka hadii aad dhahdid markii aan sameeyo qasa ka bacdi ayaa marmarinaya wax saxanka waxaa dhici karta xumbada oo keega inay ka degto oo keegi si fiican oo kuugu soo kicin soo waa ina saxanka si diyaarsata ugu horeyntii haddana waxaan diyaarsanaa insha Allah burkii stepkii labaad kadibna waxaan qasa doonaa ukunta burka waxaan isticmaalayaa bakeeri iyo bar bur ayaan isticmaalayaa iyo 2 qaando oo ah custard powder gabdho badana waxay dhahan keega oo naga halaabay in badana waa idin soo sheegay waxa dhici karta dad gadaal iiga soo biiray inay yihiin walaaleyga qaaliga ama mahadsantiin horto keega inuu halaabo waxa keeni karta baking powder waana loo baahan yahay hadii uu kaaga batana keega uu haleynaya iyo dabka inuu u dheereysan yahay ama in marka gilisid bakeegi kor iyo hoos uga shidid taas oo keegi oo dhaxda ceyrinka kaaga dhigaysa inuu bislaaday oo ka bixinaysid hadana dhaxdii ceyrinka waxaan ku soo darsaday 2 qaando custard powder qaandada oo cuntada lagu cuno aan saaid u buuxin oo baking powder ayaan ku soo darsaday hadda waxaan ku darsanayaa ukunta insha Allah ukunta isticmaalaya waa 6 xabo laakiin way yar tahay hadii ukun waaweyn haysatay 5 xabo ka dhigi kartaa waxaan soo qaatay bakeeri halfkiisa oo sokorta caadiga ee la isticmaalo anaga sokorta cad badana lama helo laakiin sokorta brownka caadiga la helaa waxa hadana isticmaalaya waa sokorta brown sugar waxa ka isticmaali doona insha Allah ayadana 2 qaando ka isticmaalaya brown sugar macaan badan ma ahan teeda kale keega waxay siinaysaa taste dhadhanaan hadaadan haysanin waa iska dhaafi kartaa qasab ma ahan ukunta anigoo qasa ayaan sokortina kiskis ku soo daraayo arkayseen hadda waxaan ku dari doonaa insha Allah brown sugar-dii oo ayadana 2 qaando kadibna waan ku sii qasi doonaa insha Allah waa isku sii qasaya ilaa sokorta ay ka dhalaasho marka ay sokorta dhalaasho waxa ku fahmaysaa machine marka aad damisid saan hada ugu qastid sokorta hoos ka dareemaysaa qajajacdeeda laakiin markii ay dhalaasho ma dareemaysid si fiican u qasa insha Allah kadibna waxaan soo qaadanayaa bakeeri halfkii saliid hadana waan waxyaraan ku shubaa waa ku qasa hadana waxyaraan ku shubaaya saliid markaan ku wada daro insha Allah ayaa waxaan ku soo darsan doonaa insha Allah caanihii ayaan ku soo darsanayaa afwan waxaan ku darayaa insha Allah vanilla-dii oo kaliyarka ayaa isticmaalaya caanahan bakeeri halfkiisa ayaa isticmaala anoo qasaya keega ayaan ku daray maanta wax walba anigoo qasaya ayaa kor uga daraayay keega waxaan ku qasi doonaa insha Allah burka markaa ku qasaysid waa inaa wax yar ugu qastaa hadana waxaan ku daray far iyo suul cusbe xoogna ha u boobsiinin because keega waa xumbo ukunta waa xumbo oo kore u kacday hadii aad xoog u qasto waxa dhici karta ukunta inay ka degto markii aad qastin waa ina hore weelka uga shubtaa si ayna kaaga digin insha Allah sidaas u qasaya markaas u qaso aniga ma boobsiino laakiin kaamirada boobsiyay soo na fiidiyooga u dheereynin sidaas u qasa insha Allah ujeedaan diyaar waaye waana وجدين وحنبو واي أو soft كيك مركي أساس قاندو كده هدي وطادنا كيك soft كاغا صوبها لكن مركي أساس هدي أو عجين عمل إسكدوا
dhacdhaco oonan kala gogo keegaas wuu adag yahay laakiin markuu keeg saas oo u daato keeg jilicsan kaaga soo baxay meesha gabdho badan ay soo weydiiyeen keeg uu naga halaabaa soo keeg inuu halaabo waxa keenayso korontada oo aad kor iyo hoos uga shidid ovenka asagoo aanan dhaxdi ka bislaanin oo korka gaduuto saasna uga bixisid ina baking powder oo kaaga bato baking powder waana loo baahan yahay hadii uu kaaga batana keeg wuu ka haleenaya keeg markii aad qasaysid ukunta si fiican u garaac ama gacanta ku qaso ama mashiin ku qaso ukunta iyo sokorta si fiican isugu garaac si fiican ha isugu dhalaalaan kadibna keeg soft ayuu ku noqon doonaa insha Allah walaaleyga qaaliga waa mahadsantihiin dhamaantiinba waxaad tihiin walaaleyga qaaliga ah aadan idinku mahadcelinaysaa ila socotaan commentidiina quruxda badan jasaakumullahu khayr waxaan gali doonaa insha Allah foornada kor bis hoos bisaan uga shidi doonaa insha Allah afwan waa u jeedaan kor dhan uga shidin hoos bis ayuu uga shidan yahay keegi wuuna soo bislaaday because kuleelkii ayaa gaaray kor saas uu gaduutay jaalahan wuxuu ahay custard powder ما شاء الله وجدان كيك قروح بدن كالا iska arag aad u macaan ayaa ka soo baxay meesha softi jileeca saxanka dhalada ciyo ma qaboobo soo insha Allah markii uu qaboobo ayaa jarjaranayna insha Allah waan arkeena keegeena sida quruxda badan oo inoogu soo bixi doono iyo sida easy ah u sameysanay waa u jeedaan ma sha Allah waa u jeedaan ku dhahay sponge waaye ma sha Allah hada maqli jirtay sponge cake waa kana maantay waa idin kala soo tuuray keeg uu iska magacyo badan yahay sponge cake vanilla cake uu iska magacyo badan yahay waa jarjar doona insha Allah sponge cake vanilla cake red velvet white forest black forest magacyo badan oo iska leeyahay soo insha Allah hadba kii markaas aan isdhahayo nifaas u heli karta ayaa idin soo gali doona insha Allah muhiimadana ma ahan in aad saxan dhalaa ku sameysatid hadba weelkii aa haysatid ayaa ku sameysan kartaa ma sha Allah ujeedaan keegii sidaas quruxda badan ayuu inoogu soo baxay ma sha Allah jileeca softiga waa ujeedaan ma sha Allah soo jilicsan yahay kaala iska arag ما شاء الله وجدنا عليه قالي مركا إدي سود وين ساسو إنه قصوا بحق قروح ذا بدن ما شاء الله كجاني فضاي ما شاء الله ساسو إنه قصوا بحق قروح ذا بدن عليه قالي وحرجنا إنات كهشين وإدي ما دعلنا دمان تيم سايقو حرنتهن جزاكم الله خيرا ولا لها قالي يقصوا بيرسود وهذا انت كل مدونا فيديو كليته السلام عليكم.